bal sheekha waxaad ka warantaa xinnaha ay dumarku marsanayaan cidiyahooda ama gacmahooda ama lugahooda iyadoo marsan ma weyse qaadan kartaa, weysadii ma ka ansaxaysaa? jawaabtii waa tan: idaa kaana lahu jirmun fi lyadi, xinnuhu hadduu leeyahay jirmun fi lyadi, hadduu leeyahay jirmiga waxaa la yidhaahdaa yacni shay marka gacantii sidaa loo dul mariyo wax ka dul waxa weeyaan wax dul saaran buu noqonayaa oo jirmi leh oo mug iyo miisaan leh. mug iyo miisaan buu leeyaho ciddidii buu dul saaran yahay ama gacantii buu dul saaran yahay, ma aha midab keliyaatoo jirkii dhex galay ma aha, ee waa shay jirmi leh oo miisaan iyo mug leh. hadduu sidaa yahay xinnuhu, idaa kaana lahu jirmun fi lyadi, haddii xinnaha ay u sugnaatay jirmi, mug iyo miisaan, waxa weeyaan gacantii ku sugan, haddii xinnaha ay u sugnaatay aw irajli ama lugta ku sugan, oo dabarka gacantii la marsado ama lugihii la mariyo ama cidiyihii la marsado, xinnahaasi wuxuu leeyahay jirmi, xinnahaasi mug iyo miisaan buu leeyahay. waxa weeyaan gacantii ama cididii ama lugtii ka saraysaba, jirmigaasoo yamnacu diidaya usuula almaa'i, inay biyuhu gaadhaan ila albasharati jirhka. fa innahu tajibu waxaa waajiba isaalatuhu, in meesha laga zuuliyo ayaa waajiba qabla ashuruuci fi lwuduu'i, intaan la gudagelin weysada aw ilgusli ama maydhashada. intayna gabadhu bilaabin inay weyse qaadato ama ayna bilaabin inay soo qubaysatay soo maydhato, maadaama xinnihii jirmi uu leeyahay oo shay waxa mug iyo miisaanla uu yahay, waa in meesha laga zuuliyaa. amaa baqaau lownihi fi lyadi waarijli, haddii midabku gacanta ama lugta uu baaqi ku yahay oo waxaan meesha yaalaa waa midab keliyaata uunoo jirhkii dhex galay, ciddidii dhex gashay ama gacmihii la mariyey dhex galay ama lugihii dhex galay, intaasunbaa ku baaqiya. haddii midabku uu baaqi ku yahay uun gacantii iyo lugtii iyo ciddidii miya, falaa yu-ahiru ma raadaynayo fii sixati alwuduu, weysada ansixitaankeeda ma raadaynayo, oo gabadhu way iska weyse qaadan kartaa iyadoo xinnihii marsan, oo de xinnihii midabkaasuun yahay uun, laakiin wax jirmi iyo mug iyo miisaan leh uuna ahayn. lianna lownahu, maxaa yeelay midabkiisu laa yamnacu ma diidayo usuula almaa, inay biyuhu jirka gaadhaan, midabkaasi ma diidayo. markaa masalada xinnuhu waa taa, oo waa maxayna? xinnaha ruuxa dumarku ay marsanayso hadduu yahay xinne miisaan leh oo mug leh jirmi leh, marka caynkaasiya oo dee wax gacantii dul saaran uu yahay ama ciddidii dul saaran ama lugtii dul saaran oo jirhkiiba dee ka sareeya, maaha midab keliyaata maaha. hadduu yahay laakiin waxaa gacantii ka sareeya, marka caynkaasiya waa in meesha laga zuuliyo. xinnaha meesha waa laga zuulinaya, waa in meesha laga saaraa ilaa midabkoo keliyaata uu ka soo harhaya un. laakiin hadduu xinnuhu yahay xinno intay gabadhii ismarisay deeta iska dhaqday iska maydhay, wax hadda dul saaran oo xinnihiiya oo jirmi leh ama mug leh miisaan leh oo shay laftiioo dul saaran aan ahayn, laakiin midab keliyaata oo dee jirkii dhex galaya uu yahay uun, markaa wax dhibaataa ma laha, way iska weyse qaadan iyadoo xinnihii uu ka muuqdo ayaa markaa ay iska weyse qaadanaysa. markaa masalada xinnuhu waa sida